السلام الله عليكم أصحابتي ذا hubinina oo hoos aadan u hubinina horta inaan soo bandhigta horta taas qalad ah ku leedihiin sheekadan jahwareer waali mashquul iyo garanwaabay ku sii socotaa كمال أرنتان حداد هاي فرانك واي عيبت ووينت نرى كل إدونت أدي حاسة intii aan xaaladaas fiirinayay waxyaalaha iiga baxay iyo meesha aan ka taaganahay fikir ahaan ayaan maanta idin la wadaagi doonaa haddii aad nagu cusub tahay subscribe taada waa dhiirigelin like taadu waa codsi commentigana fikirkaaga nagula wadaagaysaa ku soo dhawaada barnaamijkii oo faahfaahsan malahan dambe ama shantii maalmood ugu dambeysay waxaa social media khaasatan youtube ka socday dhacdadaas oo ah mid aad ka wada dheregsan tihiin nin dhalinyaraha oo la yiraahdo Kamaal oo youtuber ah iyo gabar waayadanba la joogtay dhankaasi Turkiga kulli dad family ah isqabo isku faraxsan farxad qaadanay ahaayeen iyo dhacdo magaalada ka timid ama dalka Sweden ba aan dhahe kasoo cusboonaatay oo ah gabadhaas in gabar la qabay ay tahay iyo xaalado istabas yaalay oo istabas socday baan rabaa inaan meesha aan ka taaganahay iyo waxa iga baxay fikirkayga idin la wadaago saraakiisha daatiin dabcan waa iga war sugeyseen aniga xaaladan dhowr qaybood baan u kala qaaday kullay Kamaal iyo gabadhana waa la hadli doonaa kelmadoodana waa dhihi doonaa sidoo kale ninka gabadha qabayna kelmad baan dhihi doonaa se waxaan rabaa sidii caanka aan ku ahayn ama nagu la yaqaanay inaan focuska ama xaaladda si guud u qiimeyno maskaxda haddaan in yar dib u celino aan waqtiina ka cunin maadaama muuqaalada kulli soo wada fiirsateen oo aad ka wada dheregsan tihiin arrintan 4 maalmood ka hor xaaladda halkan ay taagneed sida hooyada rabta anigana saasaan rabaa in sheekadu halka ku xiranto sababtoo ah hooyo Soomaaliyeed oo sharaf leh oo caruurteedii saa loola soo hadlayo oo dad ma garanaysa in baraha bulshada lagu hadlayo wax lagu wanaagsan yahay weeye sharaf maaha walaal marka ka saar muuqaaladeeda ka saar waxyaado dhan ka saar sheekadana iska soo afjar ilaa in ragu ka dhigay waa kula raganima hadlaya walaakaha media ama ninka la yiraahdo Imraan oo dhahaya walaalow muuqaaladaas meesha ka saar aabaha taliisa raac gabadhaasna fadliga Ilaahay ku nabadgeli 4 maalmood ka hor halkaas taagneed maalintii ku xigtay xaaladdu halkan ay taagneed meeshaan horta waxaan rabaa inaan mid ka cadeeyo bataatan ba ani inaanan li qabin ninkaas hadda sheeganayo ani inuu iqabo aniga ima qabo wareysigaas ay gabadha cadeysay ay tiri aniga cid iqabtay ama ninkaas aniga la sheegayo ima qabo ay leedahay waa ku taageeray inkastoo gabadha wareysigeedii hal arin oo calaamad su'aal igelisay ay jirtay taasoo ahayd markii gabadha ay mareysay pointiga ah qof ilma dhalay oo 5 ciyaal ah dhashay oo qarinaysa inay tahay meesha ay dhihileed anigu ilmo waan dhalay ama ma dhalin kelmadan ay tiri ilmo ma la iska helo ani ilmo hadaan muxuu ahaayay to taste iyo hadaan dhalo xataa ma inkiraay ilmo haddii aan dhalay macnaha waa hadaan hore u dhalay iyo hadaan dhalin oo hadda aan sugayaba anigu ilmahayga ma qariyeen waa jawaab center ah waa macnaha waa bartamaha ay ka istaagtay sheekada waan dhalay oo aniga ilmo Ilaahay waa isiiyay hadaan idin sheegay mana qarinayo point bi ahaan lahayd ilmo ma dhalin Ilaahay inuu siiyana waa sugayaa idinkana Faatixada ii soo marana point bi ahaan lahayd laas gabadhu halkaas center inay ka istaagtay baa moodaa laakiin si habeenkaas si qurux badan bay gabadha u hadashay mowqifkan way cadeysay inaan la qabinna way sheegtay oo ayada hadeer uu Kamaal kaliya qabo saasi hadalka u kaliil garaysay okay maanta marka muuqaalkan hadana soo dhacay muuqaalkan marka uu soo dhacayo dabcan waa soo fiirsateen waxaan rabaa in muuqaalka intaan xooga saari lahaa inaan aragtida xooga saaro muuqaalkan ninkan la soo fariisiyay waa nin Sweden ku nool waliba magaalada gabadha ay degan tahay ku nool daawaday gabadhu in ay dhahaysay niman youtuber ah oo arinkeyga aan waxba ka ogeyn baa ka soo hadlay $50,000 xataa ha iga baxdo nimankaas sharcigan la tiigsanaya waxaan been ka sheegayaa waa soo daawateen waa tana ma fahmino qofka bini'aadanka loo yaro leeyahay hadii la dhaho maanta waa ballan Ilaahay aan ka qaad maanta waa qof walbana way maqlay oo Soomaaliyeed hadii ay noqoto $50,000 xataa loo yaro ku bixina gabadhii sidaas dhahaysay marka isagoo gabadhan inay sharciga dadka la tiigsanayso oo qof ma taqaana sharci yaqaan tahay
oo wax fahansan tahay ilama ahan inuu kusoo dhiiran karo inuu intuu kaamirad soo fariisto uu dhaho anaa gabadhaas qabay 8 ciyaal ee dhashay 3 wadankii bay igaga soo saqiireen halkaanina ku dhasheen inuu iska dhihi karo oo qof uu iska madax goosan karo oo ka been abuuran karo horta ilama aha sabab ninkaas inuu ishubo inuu media kusoo fariistay baan hubaa arrinkan waxaa xataa ka dhawaajiyey ninka la yiraahdo qurux ku dhiig loo ka soo hadlay uu yiri Cabdisalaanka aaway cabdisalaanka waa kuma ma aragteen muuqaalkiisa ma aragteen asoo lehaniya qaba ma aragteen asoo video soo duubiyo lehaniya qaba ma aragteen marka maadaama ninkan uu soo fariistay waa laga yaabaa gabadha dhankeeda maadaama hadda wadanka ku laabatay in ayada dhankeeda ay wax soo bandhigto ayadana waa ka warsugeynaa wax aqliga saliimka qaadan karo cadeyn hadii la timaado waa ka warsugeynaa laakiinse hadda meesha ay marayso iyo ninkan qaabka uu hadlayay marka aad fiirisid maxamed waxay ku dhasheen Soomaaliya ku dhashay saddexda kale isbitaalkan yafla ku dhalatay kuwa ka dhintay oo kale xagee ku dhashay Soomaaliya ku dhashay saddexda saqiirta waa gartay waxa ajaayib ciyaalkeena dhalay waa sheega asaga sheegay umada daaway soo xaragana oo sheego 25 sano horta hane ilmeyga hooyad aan qabay waa laba maadamid ninkan inuu qof madax goostay oo ku xadgudbay oo dacwad iyo maxkamad iyo xabsi uu galo ama in waxa sheegaya ay run yihiin oo ilmihiisa hooyadood ay ka maqan tahay labadaas waa mid waana loo wada jooga arrinkan meeshu dhamaadkeeda noqon doono talooyinka markaan usoo gudbo waxba idinkan iftiimiye xaaladaha si isku soo dabarogayeen iyo tan ugu dambeysay oo ah darbi culus inay tahay ninka inuu soo fariisto oo waxa dhan waa idin iftiimiye talooyinka marka aan jeedinaya ninka gabadha arrin baan horta aan halkan ka leeyahay sidoo kale ninka gabadha qabayna arrin baan ka leeyahay laakiin intaan labada u gudbin waxaan rabaa ninka la yiraahdo Kamaal inaan la hadlo Kamaalow nin dhalinyaro YouTuber firfircoon umaduna ay jeceshahay xadgudubkiisu yar yahay sharaf iyo karaamana umada ku dhaxlabaata waxaan arkay muuqaal ah soo duubtay adigoo YouTuberisi wax u jawaabayo oo warniyahow ficiltanka iyo rag iska dhicisku mar buu banaan yahay marna ma banaana xaaladda social media ka jirto waa gurigaagii waa xilahaagii waa marwadaadii waxa cadeyn kaaga baahan oo furfuris kaaga baahan aabaha iyo hooyada iyo waalidkaaga iyo xaaladaha kan kugu geedaamanaya circle-ka kugu ah baa xalin iyo cadeyn arrintan haddaad dhahayd faraanki waayo ceebta ugu weyneed nara ku dhici doonta adiga xaaskaada ku dhacaysa iyo inta kula wada barnaamijka waayo xaaskaada inaad faraanki kaga dhigtid yaa 5 caruur ay soo gashay 5 caruur ay soo dhashay nin kale baa ila qabi jiray yaa xaaskaada bulshada horteeda waxaa ku tilmaamtay farankigii zinada Kamaal waxaan leeyahay inta halkan ku mashquulsan tahay halkana buu kaaga furan yahay bal buuqan inaad cadeemiisi kala furfurtinkeeda iyo xargahan inaad kala furfurto wax walba aad cadeyso oo iskilin gareyso oo is dhaqdo isku day waa ka gudbi Kamaal waxaan u gudbiyaa ninka gabadha qabay waxaan leeyahay niyahow Sweden baa joogtaa lawyer jira sharci baa jira ilmaha dhalashay leeyihiin isbitaalay ku dhasheen cadeemihoodii baa yaala wax walba meeshan yaal Sweden wax walba waa database ina meel soo fariisto dhahdo saas ana og in lagu kalsoonaan karo qof been uusan ka sheegin karin maadaama wadamo sharci ka jiro aan ku noolnahay laakiin se database waxyaalaha ku jira ka si anfac wanaagsan in aad kaliya adoo farqalalan ah soo fariisato ilmaha dhalashadoodii waa ku qoran tahay liiska hooyadood waa ugu jirtaa lawyer ba ilmaha leeyahay ama adigu aad leedahay ma fahanti marka dhankaas bal dhanka dawladda inaad u badato ilmaha kana hadii xaaladda tan la ogaado Sweden waa Scandinavia ilmaha xataa waa la qaatay ilmaha kana cidla ku soo dhici kara inaad dhanka dawladda u badato oo aad waxa ka soo clean gareyso ka soo cadeyso baan kugula talin lahaa gabadha walaasheedii muuqaalkan haduu ku soo gaaro iyo haduusan ku soo gaarin baa ku salaamaya hooyo Soomaaliyeed baa tahay haddaadan hooyo Soomaaliyeed ahaynna gabar Soomaaliyeed baa tahay biri hooyo noqon doonta muuqaalkaaga hore soo kuma jirin $50,000 baan waxaan ku bixinayaa YouTuberadan aniga arinkeyga waxba aan ka ogeyn oo ka soo hadlay soo ma ahayn $50,000 hadda waxaa ku bixisaa
ninkan meesha soo fariistay yiri gabadhan waa qabay waana xarigay ugu horeeyay meherkay ugu horeeyay qof dambana ma guursan ninka yiri meherkii ugu horeeyaan sameeyo waa gartay ma sameyn meer kale wali ninkaas konton kun ku bixi haduu been ka sheegay haddii aad ninka sharci la tiigsan kareyna oo aad youtuberada kaliya sharci la tiigsan kartana daadmina soo ka dhigan tahay ninkan sababta sharciga oo la tiigsan weeyda meesha ku jirta runa ilka waa la cadeeya ma been laga sheeg oo gabar saan ma sheegtay aan ninkaas uusan qabin ahaatay oo horena isku guursan hadaa tahay ninkaas waa ka adag tahay ma sharci la beegsan kartaa been buu ka sheegay oo ku madax goostay social media haddii ninkaas uu ku qabay oo aad sharci la tiigsan karin oo dawladdu ku leedahay war ninkan waa ninka ku qabay wuxuu ku hadlayana waa runna de marka waxay ka dhigan tahay kiiskani waa xiran yahay gabadha marka tala waxaan siin lahaa kontonku kun ninkan hadduu been kaa sheegay ninkan kaaga baahan haddaan ku bixin karinna cafallahu amma salaf ceebna ilaahay asturaan dhiilaa muuqaalkii xaaladii social media labadan bari ka jirtay aan fikirkeyga ku cabirayay intaasaan kusoo gabagabeynayaa haddii aan nagu cusub tahay subscribe taada waa dhiirigelin like taadu waa codsi commentigana fikirkaaga nagu wadaagaysaa inta aan kulmi doono barnaamij kala lamid ah waa wasiirka arrimaha gudaha maamulka Soomaaliya social media leh ciao